waxa khadka dalka Faransiiska magaalada Marseille si toos ah ugu jira madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin sidaad kala socoto dhinaca warbaahinta Soomaaliland waxa la doortay shirgudoonkii golaha wakiilada maxaad u soo jeedin lahayd shirgudoonkaas haddaad daawanaysay siday wax u dhaceen maxaad ka yara odhan lahayd horta marka horeysa waan hambalyeeyaa shirgudoonka cusub ee golaha wakiiladu ay iska dhex doorteen waxaan u rajaynayaa inay si fiican u hoggaamiyaan 5 sano ee xilka hayaan hadduu Ilaahay yiraahdo oo ay waxyaabo badan oo ummaddu ay tabaysay ay wax badan ka qabtaan baan u rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa tahay rag dhalinyaro ah ay u badan yihiin xilligaagiina waqtigan oo kale waad ogeyd xisbiyadii kulmiye iyo udub iyo ucid in xoogaa murani dhacay maxaad isleedahay maanta way kaga duwan tahay xilligaas oo kale iyo xilligani maxay madaxweyne ku kala duwan yihiin baad isleedahay yaa soo korodhay waxaan u hambalyeeyaa waayaha iyo waqtiguna way kala bedelan yihiin laakiin waxaan u rajaynayaa dhammaan golaha wakiiladu inay qarankan sida ay ugu dhaarteen ugu shaqeeyaan way mas'uuliyadda ummadan waxa xaq ah iyo wadada saxda ah ay ku hagaan 5 sano ee soo socota hadduu Ilaahay yiraahdo qaranku maanta wax badan buu eegay isha uu ku hayay adla odayaashii dalkaad ka mid tahay sida ay u dhacday sidaad u aragtaa sida ay u dhacday hanaanka loo maray dimuqraadiyadda iyo sidaas la isugu haneeyay waa sharaf iyo wax wanaagsan baan u arkaa waana ku hambalyeeyaa waana ku amaanayaa sida fiican ee kuna aqbalayna waan hambalyeeyaa iyakana waa tahay dhinaca shacabka fariin aan ka gaarsiinaa ma jirtaa madaxweyne shacabka waxaan leeyahay midnimadiina iyo wadajirkiina wada waxaad iska daysaana baashan hoos loogu dhaadhacayo ee beelnimadana hal la iska daayo taasi nabad mayso wadaniyad iyo wadajir iyo midnimo ay nabadaysataa ha ku taageeraan cid kastoo xilka ummadan u haysa